saddex week ka hor waxaan bilaabay diyeedka markaan bilaabayay waxaan ahaa 99 kiilo haddana waxaan ahay 96 kiilo muddo saddex week ah waxaan iska riday 3 kiilo oo baruur ah fiidiyogii ka horeeyay wuxuu ahaa full day of eating laakiin maalintaas raashinkii aan cunay aad u yaraa oo wuxuu ka koobnaa 1600 waxaa kaloo maalintaas raashinka cunay aad ugu yaraa carbohydrate-ka guud oo maalintaas cunay wuxuu ahaa 80 gram laakiin maanta raashinka intaas uu ka badan yahay raashinka maanta cuni doono wuxuu ka kooban yahay 2200 oo kilocalorie carbohydrate-kana intii maalintaas uu ka badan yahay adiga walaalkay hadda channelkan ku cusub tahay aniga magacayga waa Cabdinaasir waxaan suubiyaa fiidiyo ku saabsan jirriska iyo raashinka fiidiyoga wala sugayseen waaye full day of eating adiga walaalkay qaxwo soo shubo jikadeedan ku soo dhawaada asxaabta waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaa fiidiyoga inta aan guda galin fiidiyoga like ina saartaan comment ka soo bixisiin asxaabtiina u share gareysaan hadda subscribe hina fadlan subscribe leh aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta mar labaad jikadeeda ku soo dhawaada hadda waxaan idin tusinaa waxa aan ku quraacanayo quraacdayda waxay ka kooban tahay qamadi meesha waxa ugu jira qamadi inta la shiiday la qalajiyay sida buskudka kale loo suubiyay loos la shiiday oo la qalajiyay protein pudding iyo moos hadda waxaan idin tusinaa saan isku darsanayo meeshan waxaan ku shubanaa 100 gram oo qamadigaana miisaanka eber geystay boqol gram waa ku shubtay markaa ku shubtay kadib waan jajabinaa waxaan rabaa qaado inaan ku cuno of course gacanta waa iska soo dhaqay marka aan jajabiyo saan oo kale noqdo waxaan korka uga daraa 20 gram oo loos la shiiday sababta looska la shiiday doortay wuxuu yahay looskan kaloriga ku jiro uu ka yar yahay looska kale 20 gram korka uga daraa 20 gram ku daray markaas kadib hal xabo moose marka qobka laga fiiqo kadib ma aragtay yes 120 gram uu noqday markaas kadib waxaan korka uga darsanaa protein pudding-ka hadda kan oo kale haysan whey protein waa isticmaali kartaa isku mid waaye kana ka dhadhan fiican daas waa kan u doortay asxaabtaas aan jeedaan quraacdeeda waa diyaarsaday quraacda intaan la eeg arkaysiin waxay ka kooban tahay 723 kilocalorie waxaa carbohydrate-ka ah 124 gram waxaa protein-ka ah 41 gram waxaa fat-ka ah 8 gram oo bes ani hadda quraacdeeda cunaa waxaa noo balana qadada mar labaad jikadeeda ku soo dhawaada hadda waxaa la gaaray waqtiga aan cunaayay qadadeeda waxay ka kooban tahay bataati cagaarkan asparagus iyo hilibka lo'da meeshaan ku haysto dufanka aad ugu yar yahay hadda waxaan idin tusinaa saan u suubsanayo bataatiga ama baradhada halkan aan ku shubtay biyaan kululaystay markaas kadibna bataatiga halkan aan ku shubay bataatiga meeshaan ugu shubayo ma arkin oo inaad idin tuso taas uma baahnidin bataati qof kasta uu yaqaana si loo karkariyo meeshaan waxaa kaloo igu karkarooyo biyahan waxaan ku karsanaa asparaguska dabada dambe waan ka fiiqay dabada dambena markino waa marka laga fiiqay kadib markino xogaa yariisa laga jaraa sababtoo ah dabada dambe way yar ka tahay dhadhankeedana ma fiicna markaan ka jaray kadib biyaha meesha ugu kululaanaya saara 3 daqiiqo bes u qaadanaa bataatigana 30 daqiiqo qaadanaa inta labadaas ay ka diyaarsamayaan waxaan sii diyaarsanaa daawahana saarana hilibkii waxay daawaha way kulul yahay waxay riiso saliida markino laba spray
oo wax 10 calorie ama meesha ku shubaa markaas kadibna hilibka cusub baan ku darsanaa fiiri hilib markaas subsanaysid hadaad xawaaji ama maraq digaag ku dartid markaas kadibna adaawaha saartid wuu ka gubanaa markasta waxa fiican hilibka adaawaha ku suubinaysid cusbo inaad ku darsid hadii kale hada xawaaji ama maraq digaag ku dartid wuu ka gubanaa waxaydiiso cusbo ku daraa dhinac kale u gadinaa markaas kadib daawayo iyo kulul saliid waa ku soo shubtay markaas saaraa hilibka markuu dhinaca hoos ka bislaado hadaba waan gadinaa marba dhinacan gadinaa soo biseel 100% ugu noqdo 20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo qaadanaa bataatigu wuxuu qaadanaa nus saac kana wuxuu qaadanaa asparaguska 3 daqiiqo bas hilibka hadda labada dhinac uu ka bislaaday hadda waxaan suubinaa hilibku waa soo qaadaa aluminium kana korsaaraa markaas kadib aluminium ka ku duuba maxay tahay sababta aluminium ka ugu duubayo waxaan rabaa wali si fiican uu si bislaado markuu bislaado kadibna markino hilib jilaac meeshaas uu ka soo baxo hadii aadan aluminium kan isticmaalin hilibka biseel waaye laakiin markaas ma arkino jilaac ma noqonayo hadda 10 daqiiqo sugaa intuu si fiican markan uga bislaanayo si fiican uga jilaa asxaabta soo jeedaan qadada waa diyaarsaday saxankaana saartay saxankan waxa ku jiro 200 oo gram oo hilib ah 300 oo gram oo bataati ah iyo 100 gram oo ah asparagus kaloriga guud uu raashinkan ka kooban yahay 600 oo kilocalorie waaye waxa carbohydrate ka ah 42 gram waxa protein ka ah 57 gram waxana fat ka ah 21 gram bes ani hadda qadada cunaa waxa noo balana meelka saddexaad mar saddexaad jikadeeda ku soo dhawaada meelkayga saddexaad wuxuu ka kooban yahay xabadka digaaga bataati iyo asparaguska hadaaya karkarsaday biseel uu yahay diyaar uu yahay meeshaan ugu jira hadhow marka raashinka diyaarsado markaas kadib ayaan korka uga darsanaa hadda waxa idin tusinaa saan u subsanaayo bataati macaankii waa jarjaray markaan jarjaray kadib gabal yariisaan ka dhigay halkan aan ku shubtay halkan markaan ku shubay kadib meeshaan waxaan ku haystaa 10 gram olive oil korkan uga daraa markaas kadib wax yariis oo maraq digaaga korka uga daraa wax yariis oo xawaaji wasku laaqa saliid iyo mutaqaana iyo maraq digaag iyo xawaajiga si meel kasta u gaaraan markaas kadib halkan aan ku shubanaa xogaa yariis waan ku fidfidinaa diyaar waaye markaas kadib foornadaan gashanaa 20 daqiiqo foornada ugu jira intuu iga sii bislaanayo waxaan sii diyaarsanaa hadda waxaan diyaarsanaa xabadka digaaga aan diyaarsanaa wax yariis oo maraq digaaga markino aan korka uga daraa haddana dhinaca kale aan gadinaa si maraq digaaga meel walba u gaaro haddana xogaa yariis oo maraq digaaga ku daraa marka maraq digaaga meel walba gaaro air fryer ka ku shubana marka air fryer ka ku shubta kadib waa gashana wandara markaan daara kadib chicken aan geysana ama digaag 25 daqiiqo qaadana kuleelku ku bislaanayna 180 degrees waaye هذا راشين كي قمت أنا بتاعتي كفورات وكجرا لواتن دقيقة قادنا chicken كنا لواتن عشان دقيقة قادنا أصحاب تساوي جدان مير كي يستحضوا ديار سدي صحن كأنت عليه وحكجرا 300 جرام وبتاعتي معانا 100 جرام واسبارغوسا يو 200 جرام وchicken برايس كالوري جود وصحن كان كوبين هاي وحوي هاي 600 كونتوني أفر وحا كربوهيدرات كأه كونتون iyo 8 gram waxa protein ka ah 60 iyo 9 gram waxana fat ka ah 12 gram ani hadda raashinkayga cunaa waxa noo balana meelka afraad mar afraad jikadeeda ku soo dhawaada meelkayga afraad wuxuu ka kooban yahay whey protein iyo ukunta qaybta cad hadda waxa idin tusinaa saas ku qasanayo meesha waxaan ku darsanaa 40 جرام whey protein
miisaanka warawaraan geysanaa markaas kadib meeshan waxaan ku shubanaa 200 oo gram oo ah ukunta qaybta cad واسكو شيدنا مركز كبعد أصحاب سوجدان ميلك أفراد وان ديارسدي ميلك أفراد راشين بدن ما بعني صوبته ما أنت راشين بدن عناي أنت ويقول فلان تاي أنت وحكي كوبان تاي لبا بقول يكونتون كيلو كالوري وحا كربوهيدرات كأه 6 جرام بس وحا بروتين كأه كونتون 6 جرام وحا فات كأه 6 جرام بس ما أنت راشين كأعناي wuxuu ka kooban yahay 2227 kilokalori runtii waxaan rabay inaan maanta cuno 2200 laakiin 27 kilokalori soo raacday wax weyn ma ahan isbedel weyn ma suubinayso sababtoo ay waxaan caloric deficit ahay almost 800 oo kilokalori fiidiyowga hore hadaa xasuustaan carbohydrate-ka cunayo wuxuu ahaa 80 gram bes laakiin maanta wuu ka badan yahay maadaama high carb day ay tahay 227 gram oo carbohydrate guud amaanta cunay بروتين كجود أمانته عني وحوها 220 جرام فات كجود أمانتي عنينا وحوها أفرتن أفر جرام مالين كسته 220 كيلو كالوري معنا ويجي أفر جر وحان عنا أما أفر معنا ويجي 200 أو كيلو كالوري صدق معنا ويجينا كون يلح كيلو كالوري اسكتوا دوب ويجي مركز وحاجة عايو 1 كيلو أو برورة كالوري جود هذا الميزان إسكريدين أنا بحناي وحويها 3000 أو كيلو كالوري حتى هذا أنا لبكون إلى بقول كيلو كالوري ما نقول مركز تا ميزان ويقنع لكن محاربة متقارنة معلومها قاركود إن الفيسيك سايد وهذا معلومها قاركود نورمال إن الفيسيك وهذا مركزنا متقارنة ويجي وحيقنع عايو 1 كيلو أو برورة أصحاب الفيديو ماشان أو كسوق وجبينا فيديو كانوا دراسة مرة waxaan ka codsanahay video like na saartaan comment ka soo bixisiin hadaa taqaanin qof miisaan iskridayna video-gan share na dhahdeen hadaa rabtiin wax video ina ka soo soobiyana comment-iga hoos igu soo qora aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada video-gan aad daawateen waxaan noo baranay video-gan ku xigo balanteena waa muro